أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أولا وآخرا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه حظا للشيطان ولا لأنفسنا. walaalayaal ilaahay mahad iskale tabaaraka wa tacaala, mar hore iyo mar dambaba isagaa mudan oo xaq u leh in loo mahad celiyo oo la ammaano. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. intaa kadib kulankan waxaan doonayaa inaan ku qaadanno hal xadiis. xadiidkaasi sida nusuusta qur-aanka iyo sunnaduba yihiin nolosheennuu taabanaya. xadiidka waxaa soo saaray alimaamu axmed, tirmidi, nasaa'i iyo keyrkood. saxaabiga laga warinaya waxaa la yidhahdaa abu kabsha. culimada qaar waxay leeyihin xadiidku waa xasan, qaarna waxay leeyihin waa saxiix. xadiidkaas nabigu wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam: inama addunyaa liarbacatin nafar. adduunyadu waxay u sugnaatay afar ruux ama afar kooxood ayaa adduunyadan iska leh. bimacnaa dadka adduunyada ku dhex nool afar bay u qaybsamaan. ka koowaadi waa cabdin aataahu allahu maalan wa cilman. waa addoon ilaahay uu siiyey aqoon iyo xoolo. cilmi iyo adduunyaa la isugu daray xoolo. فهو يعمل بعلمه في ماله. علمigiisuu ku camal falayaa oo xoolaha ku maamulaya. ويتقي فيه ربه. cilmigaasuu ilaahay uga baqaya. ويعلم لله فيه حقا. cilmigaa inuu ilaahay xaq ku leeyahayna wuu ogsoon yahay. ويصل فيه رحمه. xoolahaas qaraabadiisana waa ka xidhiirinaya. waa ka koobaad. waa ka labaad waxa way cabdun aataahu allahu cilman walam yu'tihi maalan. addoon ilaahay uu cilmi siiyey laakiin uusan xoolo siinin. diintuu yaqaanaa, kitaabka iyo sunnadu yaqaanaa, laakiin xoolo ma leh. fa huwa saadiqu niyati buu nabi sal alla alay wasalam. niyad run uu wataa, waa niyad fiican. wayaquulu low kaana lii maalun la camiltu fiihi bicamali fulaan. wuxuu leeyahay haddaan xoolo lahaan lahaa oo cilmigan ilaahay ii siiyo xoolo iigu dari lahaa, xoolaha waxaan ku samayn lahaa siduu hebel sameeyey oo kale, kii isaga ka horreeyey. sidaasoo kalean annoo yeeli lahaa, qaraabadan ka xidhiini lahaa, xaqa ilaahay baan ka gudan lahaa, cilmigan ku maamuli lahaa. nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam, kii hore rasuulku wuxuu uhi sal alla alay wasalam: fahada biafdali almanaazil. kaa horoo cilmigii xoolaha laysugu daray waa darajada u sarraysa. kan dambe nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam: fahumaa fi ljri sawaa. kaa hore iyo kan dambe xagga ajirka way ku sumayiin. midka saddexaad nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam: cabdun aw cabdin
أتاه الله مالا ولم يؤته علما أدون إلهي حول السيين والله لكن عن علم لسين أقول له مدر فهو يخبط في ماله حولها مامل كوضي يكسب كوضة وإسكها قبسنية وإسكها قبنعية لا يعلم لله فيه حقا حولها إنه إلهي حق ليه مبوغا ولا يصل فيه رحمه قرابة دي سنة كما حريريه ولا يتقي فيه ربه حولها أن إلهي أقام بغاه وينفقه في غير حقه حولها أن ماشي إلهي أقول لك المال أنا بكو بحنايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل درجوين كماشا ولي ذا تكاسا كتشرو رسولك صلى الله عليه وسلم كاسا ذاتك أقول ليت ميتك أفراد نبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد لم يؤته الله مالا ولا علما إلهي علمنا مسين حولنا مسين لكن وحوليه لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان هدان حول لهان لها منك حولها كعيار يسيس وكلا وعيار لها سكاس وكلا ييري لها بوليه حسن ما يسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوزرهما سواء لوضع ذنبنا الذنب قودو والسماء يهي برسولك صلى الله عليه وسلم واسكو ذنبي أفر ويمرك أفر دواح الرباء وان حديثك أوكياني إنا نسوي الدين لكيت كتير تادو إلا أفر تعميدهم بيننا يسوما أفر تاكيت هاي وعاكسو بحيا إنا فهمتو حال كاغا كدبنا هدي وحكام قين أصدب قبط انتينا أرنتو أي كولتها الله أفرت هذا دب أقول نقول متك كوبادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد آتاه الله مالا وعلما هنتبوا إلهي سيئي علمي أوكما بلنا الله واسي طبعا علمي قال لك الله يوم وعلمي قدينته وقرآنك والسنة ووحي لك فهمي علمي بولي هاي حولنا إلهي واسي علمي بحوله معمولية كسب كوحو سوق كسبنا حولها مركو شقيسنا ويسوق قليان علمي بوكو معمولية ويكو سوق قليان وحارانتي كغا إلالينا يا حلاشينا كو كسبنا يا حوله مركو يسوق قلانا وحوكو معمولية وكو بحنايا وكو استعماليا علمك أو يقان السيدة أو فريم مثال نبيك بحي صلى الله عليه وسلم حق إلهي كله حولهم بوكا قدنيا سيد زكدي واجبك هيدي وحلم بدا قرابة ديسو كحريرنا يا تدكيه الكيسي قرابة ديسو وحكتريا الله أقبق يا وحولها ميل ألا الديدي كما بحينا وكا إلهلنا يا الله أقبق يا حولها علمك إلهي سيئي أيو حوله أقتلنا يا علمك حولها علمك معمولي كإسقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوا بأفضل المنازل بني آدم كدولك تشوغ ميتك أقدر تسريوا الدنيا خربك أقفي عنه معناه هذا ما هي هدي الله تبارك وتعالى وحولك سيئ وحوله أقون هذا علمي الشريعة أتكون ماموشو علمك أتكون مامول لها إن قرنيس عيدنا كاما فيها أدون إلهي دور طيبات وقيمة بدن
halka waxaynu ka fahmaynaa oo ka soo baxaya qolada dambana la tilmaamaya oo yani ku jira qaybaha dambe Allah hadduu adoonka awood siiyo ama awood dhaqaale ama awood kursi ama adduunyo uu siiyo laakiin uunan haynin uu haysto cilmigu ku maamuli lahaa oo shariicada ku maamulo xoolahaas iyo kursiga iyo awooddaasi aafadooda iyo dhibkoodana wuu ka badbaadi ajirkooda iyo khayrkoodana waa helaya waana marka xoolaha la amaanay waaye حديث في صحيح مسلم كويا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وحاوناك لي او في عنادي حول وناكسن حلال او ني وناكسن ليه حوله مر والما معينا مر والبنا محما روح دو وناكسن هي حولهنا وناكسين رسولك صلى الله عليه وسلم وي وناكسين وي في عنتي تاس تاواتي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي كوكله الرئيه لأن أيقوا وذا عبادي سرية ووذا جهادي أي هدنا ضدك حولها اللي هي لطيرايين علماء ذي كلا صحابة وحي لطيرايين خير كإيمان يحوله هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وحاويمت فقراء المهاجرين صحابة ذي سوه جروتي كودي أو حيسن فقراء هبوي وحي إلى هذا يا رسول الله ذاتك هنتيذ لها تاجرين تاها بأجركي يا درجاتكي سريع هذا قاطي أنا كنا ما هينو محايا لي بدهان هدان تكنين وينلا تكنيا هندان سومين وينلا سوميا حدان خير سمينا وانا لا سمينيا مساجدي وين نقول جيران علمي way fadhiyaan goobii khayrka kama maqna laakiin waxayna la dheerihiin xoolahoodii oo ay bixinayaan jihaad ku bixinayaan diinta ku bixinayaan sadaqaysanayaan annagana taamageen ma hayno marka rasuulka ila xalkeen nimankan in alla tartanaan rabnaa marka ilaahayna wax nama siinin marka waxaan rabnaa inaan gaadhno ilaa saxaabadu way tartami jireen oo khayrka waa loo tartami jiray Soomaa inay ka badiyaan mar rabaan nabigu markaas wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ma idin tusaa waxa daad samaysaan ka idin ka dambeeyana uusan idin soo gaari karin ka idin ka horeeyana aad gaadhaysaan haaba yiraahdeen waa waxaan rabnaba nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam salaada marka tukadaan صدن يصدح قور سبحان الله له صدن يصدح قورنا الحمد لله له صدن يصدح قورنا الله أكبر له سقال يسقاشن ويه بقول واحد كقدكتان لا إله إلا الله وحده لا شريك له انت هذا لازمتان تاجر إذا سو قاعد معي عيد إذا كده ويان كرتما بتشرتبه نين إذا كهر ريان واد قاعد إنسان وادريرين واي هاي بدهم حل بيهله تاجرين تلفتودي meesha kama maqanayne warkii waa gaaray oo yaa ka xigay iyagaba subhanallah walhamdulillah allahu akbar intii bay la yimaad fuqaradii soo dacwootay arrinkii bay ka warheeyeen waxay yiraahdeen rasuulka ilaahayow nimankii intii waa maqleen oo waana sameeyeen wali waa nala sameeyeen waa khayrkana waa nagu la sameeyeen xoolihiina waa nala dheeriyihiin ما حل هذنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله وديراد إلهي بحيي وحنا كما قوان كرب رسول صلى الله عليه وسلم هول إلهي ويتاس هدي وحوقاقي يعني دين قرية أي أقادين ويسميين هدي وحوق كما قوان كرهو شايدا سومارك مركا يعني وحوي مركي وحوله علم الدين هي الشريعة معمولس روحنا أقوان تيدي أوليه أقوان تانا ومالا حولها كم معمولي مركز وحوي فذاك بأفضل المنازل بالنبي صلى الله عليه وسلم حولها كلية معها حتى أودها كالسيدة شقضة وكله
كراستا يا أودا يا سياسة هذه الروحة أود للسيا أما مدحوينها أما وزيرك أما قدوميها وحا إلهي يودي بيها أود سيء علمكم معموله شرعكم معموله عساقنا وحوي أفضل المنازل واحد. هاي لو قرأنا حديث في صحيح البخاري النبي يقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تضبر الروح ما ننت قيامة ولا كذيذية إلهي عرشي سوهرين دونا هوسك عرشي هرسن دونا ما نكاسون هوس جرينك الله مويه تضبط وحالكم بالله إمام عادل من مضحة وعادلة مدحوينه شريعة الدين إلهي دتك كلها عدالتنا بالشدة أسمعين معي لنا شريعة بدتك كل قينين عادل ما بنقون كربا بالشم مسلمة نين أطهلين وان كتابك اللي سنة النبي كل قينين عادل ما نقون كربا عادل وحلقة ولا دين تدتك كمامولا كتابك ربي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ساس تردد با تضبطي لوغو هرمريي لعموم نفعه تضبط كلبا أساقا كوكا محايلي نفعي عامة وفي سمر كتابك الربي يا شرع يا علمك يا قونتي شرع هذا مركه كرسي يا دولة نمذا يا أودي لغو معمولو درجة سروه حولي مركه علمي يا قون لغو معمولو قيمة يا درجة واحد ذلك بأفضل المنازل ميدي كاسوي الضوء ميدكو وفي عون ساسو نبي كوشيغ صلى الله عليه وسلم كلا بعد dad yar baa marka inta ilaahay isku siiya dad yar baa inta la isku siiyaayo inta xoolo la siiyo oo baashi la siiyo hadana xoolo hadana cilmi la siiyo cilmigii iyo hadana in la waafajiyo inuu xoolihii isku maamulo dad yar baa ilaahay siiya midka labaad cilmi bulay aqoon baa ilaahay siiya كتابك يا سنة دي بيقانا شريعة دي بيقانا لكن حول ما هيش لكن نيت بوهيا وحوليه هدان حول لهان لها هبل كاس عالم كإيه حولها لحوله السوء معموليان كم معمول لها حق إلهي بان كقدن لها قرابة كحريرين لها سكدا كبحين لها الله نقبقي لها كسب كودان هجاجين لها نيادها سوقبا لكن وحو كفول لها نيادها ما هيو النبي يقول صلى الله عليه وسلم كاهوري يسوى اسكو أجر مو أجر كوكو فهو بنيتي النبي صلى الله عليه وسلم نيادي سا وانا أكسم بو إلهي أقبنايا لأن سان شيء دونو عزيمة دا يقوانك قلبك أدونك إلهي وأو حسابنا كأن يسوق سبيه وكلا الله حسابنا نيدا وانا أكسم بأمرك الله قبنا يايو كاهوري اسكو بوسيه النبي صلى الله عليه وسلم أو اسكو أجري طبعا أصل كأجر كي ثواب كي وذاكان لكن كهوري وحبول لديريا شكي ماله سيد النصوص تقالت المامس لكن أصل يعني الأجر والثواب وكالحياة أجر بوهلي فواحد الماميسا نيادو قورتي هذا عمل ككري ويدو نيادو إني وحوين تاي النبي قال وكيل صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى واحد نيته ولا لا واحد نيته ولا لا حديث ابن عباس بالصحيحين رسولك صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة روحي قوان صدا ودون خير بعد ما عضي واد سمين ويدي وان يستي ماذا سمينين أجر لما يسترن با إلهي أقريه
niyadaas aad niyeysatay ayaa waxa lagu qorayaa adigoo soo ajir kaamil ah lagu qorayaa fa in amila biha wa niyeysatay wa nasamaysay كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وناكي ونيستي وات سميسي انت أغير اللغول لبن لابا يطبن قور واحد تضوب غلو قور إن لغول لبن لابا نواسور تقل انت إن كبدا إن لغوس لبن لابا نواسور تقل ما حيكو حرمت هاي oo amalka kala duwaya mar aad uga helaysaa laban laab 10 goor lagu laban laabo waa hal amal waa salaadii maghrib in tukanay ay dadka qaarna ka helayaan 10 goor loo laban laabo waa inta ugu yar qaarna 700 goor qaarna tiro far badan oo Ilaahay uu garanayo maxay ku kala tagaysaa waxay ku kala tagaysaa li kamal al ikhlas niyada lagu sameeyay ayaa kala geynaysa ajirka amalka laga helayo waxa kale oo kala geynaya li makan al haajati ilayhi baahida loo qabo waxa sameysay marka muslimiintu xoolaha u baahan yihiin oo hantida u baahan yihiin oo bulshadooda u baahan yihiin oo miskiinkooda u baahan yihiin oo diintooda u baahan tahay baahidaasi markaad wax ku bixiso iyo mar muslimiintu dheregsan yihiin waxoogaa inaad bixisaay isku mid maaha marka baahidu taagan tahay oo daran tahay markaasi ajirku waa ka badan yahay mar baahida noocaasi ayna jirin saas daradeed baa Allah wuxuu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu وكل وعد الله الحسنى مكة انتان لفرنين او مسلمين تبردرنايين رقي حوله هذا بحيي جهادي ويكأجر ويهن كوي مكة مركي لفرتي كدب حوله هذا بحيي جهادي مدول بنا إلهي أجر بو بلنقاض إيا وناق إيا جنو صوت محيطة صوت وحوي مالنتي مسلمين تترير أهايان والإرياني يا oo maka lagu eriyanay ragii soo islaamay oo xoolahooda bixiyay Abu Bakar Usman ragii noocaalaha yaa gaari karo waa ragii xilliga intay soo islaameen la dhibay oo diinta loo rafaadiyay iyo isku mid maaha maalin la barwaaqoobay yimid sooma laana maka markii la furtay wixii ka dambeysay muslimiintu iyaga gacan sirriyay sanadkii 9aad ilaa maka waxa la furtay sanadkii 8aad bishii Ramadaan baa la furtay bishii ka dambeysay oo Shawwaalna nabigu wuxuu galay dagaalkii Hunayn oo Saqiif iyo Hawaazi nabigu ku jabiyay sallallahu alayhi wasallam sanadkii waa dhamaaday Soomaa sanadkaasi haduu dhamaaday sanadkii 9aad waa bilowday sanadka 9aad waa sanadka la yiraahdo Aamul Wufuud baa la dhahaa qabaa'ishii Carbeed yey qolo walba ugaasiyadoodii iyo salaadiintoodii soo dirsadeen iyo wafdiyo matalaya oo nabiga kule waan soo islaamin qabiil hebel hadaana odaygii reerkaas aan ahay reerkaygii baan ka socdaa diintii baan qaadanay oo intii ku horeysay waxaad u imaan weyday intii ku horeysay waxa u imaan waayeen waxay lahaayeen Muhammad iyo reerkiisa Quraysh aan isku fiirsano hadday ka adkaadaan nabinimadu sheegay waxba kama jirin iyaga inaga kaafiyay dibkiis hadduu ka adkaado nimanka uu maka ka qabsadana war ma jiree aan isdhiibno halkaasay carabtii jasiiradda deganeed halkaasay wada sugahayeen talo maka miyuu ka qabsan doonaa Quraysh miyuu jabin doonaa mise isaga ka takhalusi doonaa markuu maka qabsaday war ma yaala marka ila Yaman إلى أطراف الشام ملك استهلك يجمر حلقة مركز إسلام كبرواقه بي أو ليسسور دي بي أو غنائمي حول بدن لهلي نينك سور لي وصو إسلامي إيه نينك ديبك أوبرير ما يسكو مدبا وصور رفاض ساس دلاد خيركو يوحكوك لبدن يا
باهيدا الله قبنا مضاعفة دي خير كلام الله بدي سوا وكو كلا صوبتان وكو إيمانية عمل كلفتي سن وكو إيمانية وكلا فضل بدن أسباب بدن بوليه عن قولنا ننكاسين يدي سائلها يقبت طيب هداد خير كهمدو خير كأد همدات سمين ويدي أجر بلغا قرية زيد بن أسلم نلي تابعين تكملها باوحو يري نمبا يا علماء ويم منك السؤال بوتا وحي العلماء وحن ويدينيا عمل وحرب وليغي دقيقة إنو سن إله حسكي سو قلبي عربكي كمرنا إنو سن كمرنا نولشيدا دقيقة إنا نهردو موي ساس ترى العلماء وحن ويدينيا عمل وليغي يدقيقة والبا آن سميو وآن كمرنا maxaa yeelay waxaan nacbahay in aan dhulka korkiisa joogo aanon ilaahay xusaynin culimay keena way marka nin culimada kamid ah wuxuu yiri ana ku sheegay amalka markaad awood u haysood kari kartana daacada samee markaad kari weedood awood u weydana qalbiga ka jeclow soo waliga marka ilaahay ma xusaysid ومرات سمينيسو هي مرأة همينيسو قلبك كتشعشاه ويضرد ديسو حسنا لغو قري مايه سيداس دراد ديد باودو حاد كون نقوم بويري وليغا خير كاتشعليد من كل عشرات نقوني مركا من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كاسو ميد معه haddii marka wax weeyaan aadan xoolo lahayn oo aadan tabartii lahayn oodan hanti lahayn waxa kugu filan inaad khayr ka jeclaato oo tiraahdo maanta haddaan xoolo heli lahaa maanta haddaan xoolo heli lahaa masaajidda waa dhisi lahaa maanta haddaan xoolo heli lahaa dugsiyada qur-aanka dhisi lahaa maanta haddaan hanti haysan lahaa diintan ku garab istaagi lahaa maanta haddaan hanti haysan lahaa dadka muslimiinta baahan baan wada dhirjin lahaa qaxootigaasaan qaxootinimada ka saari lahaa kuwa gaaladu ka haysteen baan ka soo celin lahaa niyadaasa waxaa ku gaadhaysaa midka awoodda leh ee samaynaya baad ku gaadhi sidaas daraaddeed baa waxaa jira athar dhahaya niyatul mu'mini khayrun min camalihi ruuxa muuminka niyadiisu waxay ka khayr badan tahay amalkiisa bimaana niyadu waxay gaari kartaa meeluna amalku gaari karin wax aadan qaban kareynin niyada xaqiijin karta haddaad hamido oo aad go'aansato jeclaato niyadu waxay gaari kartaa meelusan amalku gaari karin arikaasi marka qodobka labaad waa yayna marka ka hoos bix arrinkaasi wuxuu tilmaamayaa oo labada qole ee hore ay la dheer yihiin labadan qole dambe ma fiicna saan tilmaami doon labadan dambe ma fiicna labada hore fiican labadaas maxay ku fiicnaadeen labadaasi hal qodob baa ka dhaxeeya waxna way ku kala duwan yihiin halka qodob ee ka dhaxeeya muxuu yahay aqoon iyo cilmi bay leeyihiin waxay ku kala duwan yihiin maxay tahay midna xoolo leeyahay midna xoolo ma leeyahay kii xoolaha lahaa xoolihiisii buu khayrka u isticmaalayaa oo cilmiga ku maamulayaa kii aan xoolaha lahaynna niyadii wanaagsanayd buu hayaa oo leeyahay alalahay kaasoo kala noqon lahaa haddaan xoolo heli lahaa halkaa marka waxaa ka muuqda haddii ilaahay khayr kula rabo ama xoolo yeelo ama kursi yeelo ama awood yeelo haddii ilaahay xoolo kula rabo khayr kula rabo aqoon buu saldhig uga dhigaa noloshaada iyo xoolahaaga iyo kursigaaga iyo hantidaada aqoon diineed haddaan khayr lagula rabinna inta cilmiga iyo barashada iyo aqoonta iyo fahamka diinta lagu garamariyo yaa waxaa lagugu ibtileeyaa in ama xoolo lagu siiyo ama kursi iyo jago lagu siiyo adoo jaahila markaasi waxa weeye
kuwana ku kaxaysanaya laana wixii control laha oo ilaalin laha oo ku ilaalin lahayd ma haysid markaasaad fahmi kartaan xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam fi alhadith fi sahihayn min hadith muawiya rasuulku sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din hadiiba ilaahi khayr kula rabo diintu ku fahansiyaa fahamka diinta noloshaada marka maamulaysa kursigaaga iyo dawladdaada maamulaysa dhaqaalahaaga maamulaysa gurigaaga maamulaysa dhaqdhaqaaqaaga maamulaya cibaadadaada maamulaya waxa kada furuukaas waa haddaad cilmi la'aan iska hagabsato dhibkeeday marka leedahay markay ugu yartahay waxaa dhacaysa xoolihii ilaahay ku siiyey haddaadan aqoon ku maamulin waa kan saddexaad waay ninka saddexaad nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam cabdun aataahu allahu maalan walam yu'ti cilman addoon ilaahay xoolo siiyey cilmina uusan siinin kursi buu siiyey cilmi ma laha dawlad iyo awood buu u dhiibay cilmi laha hanti buu haystaa cilmigeedii ma laha soo maa muxuu samaynayaa marka fahuwa yakhbitu fii maalihi xoolaha maamulkooda waa iska gebi dhaclaynaya khabadka waxaa la yidhaahdaa inaad iska dhacdhacdo iska hagabsato ilan cilmigii ku hagi laha ma lihid aqoontii ma lihid wixii aad waxaan ku maamulahayd ma haysid waa inaad marka iska gebi dhacdo ood iska hagabsato oo si indhalaana isaga socoto oo xoolihii aad iskaga tasarrufto aqoon la'aan iyo jahli وفيرس النبي صلى الله عليه وسلم واتك كف يخبط بالنبي كعب صلى الله عليه وسلم خبطك وحل هذا روح يرسر قانسن مارت روح يرسر قانسن او محوها هي او دعاي اسكن دعاي او كاسو كلو معناه waxa laga wadaa xoolihii wuxuu ku maamulayaa jahli aqoon la'aan iyo sidii rabo sidii kolba naftiisii hawadiisu ka hesho nabigu uu si caday wuxuu yiri tusaalayaal buu ka bixiyo xoolahani xaqi ilaahay ku lahaa ma bictiraafsanaba xoolaha zakaa lagu leeyahay xoolaha xuquuq baa lagu leeyahay ma say gaaladu dhaheen oo kale fi suurati yaasiin markii la yiri dadkan masaakiinta wax siiya waxay yiraahdeen hadduu ilaahay wax la rabo muxuu wax u sii waayay warwad qaldantiin muslimiinta ku leeyahay in antum illa fi dhalal wa qaldantiin bayda maxay dadkan ilaahay baa qadiye dad ilaahay qadiye maxay idinku xusiinaysan idinka baa ilaahay amarkiisa khilaaf iyo doomarsan ilaahay baa qadiye saa u doortay haqqataanadana daaye saasay leeyahay marka xoolihii ilaahay siiyay tabaaraka taala xaq in lagu leeyahay qaraabadiisa ka xidhiidhin maayo alla kaga baqi maayo xumaan buu ku samaynayaa dagaaluu ku galayaa waxbuu ku burburinayaa dulmi buu ku galayaa xaraam buu isticmaalayaa Soomaaliyeed laa yattaqi Allaha fihi rabbahu xoolahan ilaahay ugama baqayo yunfiqu fi ghayri haqqihi meeshii ilaahay ugu talagalay meelaan ahayn buu ku bixinayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa hada bi akhbathi almanazil adoomada ilaahay midka ugu xun waay darajadii ugu xumayd buu ku jiraa waa midkan anaga moodayna ilaahay inuu doortay isaguna ismoodahay inuu dooranay waa taajir laakiin jaahila ribo ku jira xaraam buu ku jira wuxuu qasanaya marka dambana marka taajir noqotood xoolo hesho hadaadan xoolahan khatartooda iyo halistooda cilmi iyo aqoon iyo la kacabsi ka ilaaliso aadan lahayn marka dambe xooluhu iyaga ku kaxaysanaya taajirku meel iskama fadhiyo markuu hanti yeesho hanti waad yeelatay maxaa ku xiga magac buu raadiyaa magac markuu helo kursi buu raadiyaa way ku jiidanayaan Soomaali madaxweyne noqo wasiir noqo halkaasay ku jiidanayaan meelihii aad joogi jirtay way kaa kaxaynayaan meelahaad ka qaxweyn jirtay ka qaxweyn maysid hoteelada seexan jirtay seexan maysid Soomaa
noloshaadii iyagaa bedelaya xooluhu iyagaa ku jiidanaya tagyiir kulli ah waxay ku samaynayaan noloshaadoo dhan bay tagyiir ku samaynayaan isma ogid marka way ku wataan ayagaa ku wata Soomaaliyeed marka xoolihii kaas aan cilmiga aqoonta lahayn haddana xoolaha la siiyay waa la imtixaanay akhbathul manazil buu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam halka waxa ka soo baxaya marka cilmigii xoolihii waxay u baahan yihiin cilmi shagadii waxay u baahan tahay cilmi siyaasadii waxay u baahan tahay cilmi adduunyadii cilmi u baahan tahay hadaad rabto inaad ka badbaado waa inaad aqoon ku maamusho haddii kale waxaad gali dadka kuwa ugu liita sababtu waxa weeye cilmigu isagaa kuu kala iftiiminaya xoolahani meeshii loogu talagalay markay ugu yar tahay haddaadan xataa xaaraan ku gelin oodan dulmi ku gelin oodan dagaal qabiil ku abaabulin oodan daalim ku garab istaagin oo siyaasadii balaayo ayna kula jiidhin xooluhu markay ugu yar tahay waxaadan kala garanaynin labadan shaygan aad samaynayso see u kala fiican yahay mid laga fiican yahay baad geli kii fiicnaana waad ka tegi mid laga ajir badan yahay baad aadi oo xoolahaaga ku bixin kii ajirka badnaana waad ka tegi waa markay ugu yar tahay waa yaani mafduulkii baad samayn faadilkiina waad ka tegi مثال بان idin siinay waa مثال taqriibi ah oo hadda aad aan ugu badan dadkeena ganacsatadeenna hantida leh sanadkii intaasoo goor bay soo cumraysta sanad walbana qaar baa xajiya xaj iyo cumro aan kala go'ayn halkii maray soo xajiyaan iyo halkii maray soo cumraystaan intaasoo kun oo dollar bay soo isticmaalayaan kii waajibka ah ma kii sunna